laakiin markan aynu eegno dhinaca iyo magaalada Addis Ababa oo ay ku sugan yihiin kooxda soo caanbaxday muddooyinkan dambe ee dhinaca fanka ee la yiraahdo kooxda xidigaha geeska. magaalada Addis Ababa ayay hawl u joogaan. waryahayaga Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa haddaba waxa qadka telefoonka Addis Ababa uu ku wareystay gudoomiyaha kooxdaasi Abwaan Xasan Dhuxul Laab Saalax, waxaana marka hore uu weydiiyey bal inuu noo sharaxo kooxdan oo markaasi aad heesahooda loo dhageysto, bal inta ay ka kooban yihiin iyo qaabka ay u dhismeen. tirada guud ee kooxdu waqtigan imika waxa weeye dhowr iyo 30 qof ma joogaan Hargeysa oo kaliya balse Hodan Cabdiraxmaan oo kale Mareykan bay joogtaa, Abwaan Jamaal Liibaan isna qadar buu joogaa oo kooxda kamida, Yusuf Jeego inta kalena waxay joogaan magaalada leedahay maxay Hargeysa oo saldhiga ama maxay halkii ay ka asaasmeena ama xarunta xidigaha geesku magaalada Hargeysa. halkeebu marayaa fankiinu imika? wallahi fankaygu wuxuu marayaa guri kasta iyo goob kasta oo dadka afiya dhaqan wadaagta ee Soomaalidu ay joogaan, hadday qurba tahay hadday dalka tahay. waxaanu saameyn ku yeelanay dhagaha ummadda Soomaaliyeed ee maxay ku kala nool dunida daafaheeda. waxaanu soo saarnay heeso raali geliyay ama ay la dhaceen dhammaan dhalinyarada, waayeelka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu. waxaan oran karaa wuxuu marayaa markaa meel wanaagsan oo bulshadu ay maxay nagu taageereen inay dhagahooga nasiyaan wana ku hambalyeynaya shacabka. waa tahay xaggan markaad eegto maxaa ugu weyn ilaa imika guulaa gaadheen markaad fanka eegto? adigu abwaankii baa tahay, heeso badan baad u samaysay, fanaaniinta heesa, maxaa taa nooga sheegi karaysaa? guusha aan gaadhnay waxa weeye hadafkii aan lahayn waxaan aaminsanahay 10% weli maanu gaadhin. dhinaca kale marka laga eego waxaanu gaadhnay guul la taaban karo haddii qof xidigihii geesku ay noqdeen baan ama koox magac ahaan saameyn ku yeelata ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo ixtiraam loo hayo oo la aaminsan yahay inay fankeenii soo nooleeyeen. waxaan oran karaa guusha ugu weyn ee xidigaha geesku gaadheen soo nooleynta fanka. wax ma nooga sheegi karaysaa socdaalkiinan ay imika ku joogtaan caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa? horta wuxuu kamid yahay socdaallada kala duwan ee aanu meelo kamida maxay dalalka jaarka aanu ku tagno. Djibouti waan horaan u tagnay, imikana Ethiopia aanu nimadnay, waxa laga yaabaa inaan Kenya tagno oo qorshahay noogu jirtaa. inta marka laga yimaado socdaalka iyo safarkayga waxa uu helinayay waxaanu diyaarinay qorshe aanu ugu baxano dalalka Yurub. qorshahaasi ayaa ka qayb joogitaanka Addis ugu socdaa. ma fududa de koox dhan bixitaankeedu oo maxay dhinacyo fara badan oo waxa loo baahan yahay hadday tahay safarka qorshihiisii, hadday tahay hadafkii safarka, hadday tahay ujeedada safarka, waxaasoo dhan in la raxa bixiyo. waxa kale oo loo baahan yahay in la diyaariyo wixii ku xidhnaa document waxyaabo fara badan ilaa hadda way noo qabsoomeen. kooxda xidigaha geeskuna dhawaan insha Allah waxay maxay soo mari doontaa dal kasta oo Soomaali ku nooshahay. waxaan u mahadnaqayaa oo aan mar iyo 2-3 halkan ugu mahadnaqayaa dawladda Soomaaliland. waxa kale oo aan u mahadnaqayaa maxay jaaliyadaha dibadda la soo xiriira. waxa kale oo aan u mahadnaqayaa orodyahanka caanka ah ee Mo Farah oo kooxda ka qaatay horumarinteeda kaalin muuqata. waxaa jirta baryahan dambe waad aragtay adduunku isbedelay, internet baa jira, YouTube baa jira, Facebook baa jira, kooxahan soo baxay iyo hoboladan soo baxay cusub. dad badan baa ka cawda oo ama dadka waaweyn ama hoboladii hore oo yiraahdo dhaqankii Soomaaliga ee fanka way bedeleen ama waxyaalo kale ay ku soo darayaan. taa idinku kooxdiinan geesku sida arrinka uga jawaabaysaan? horta wax kasta oo dhaqanka iyo hidasamaha Soomaalida lid ku ah oo diinta lid ku ah cidii soo bandhigtay horta oo cambaaraynana. anagu waxaan nahay dad dhaqanka ka turjumaya. marka xidigaha geeska la arko in dhaqanka la xasuustaa. ma jirto fiidiyooyo ay xidigaha geesku sameeyaan oo anshaxaya dhaqanka iyo diinta intaba hay'aday ka hor imanaya. ma jirto sawirro qaldan oo ka gudba. ma jirto waxaan oran karo maanta dhaqanka ayaa carqalad ku yihiin. waxyaabaha lagu amaano ee dadka waxgaradka ah ee fanka ugu dhuun daloola inta badan ay maxay soo qaataan waxa kamid ah
isku xidhnaanteeda iyo midnimadeeda. midnimadaasina waxaa kasoo dhex dhashay oo kasoo baxay in aanu samayno guddi ka talisa ilaalinta dhaqanka oo waxaad arkaysa fiidiyooyo badan oo iminka lasoo sameeyo dibadda laga soo sameeyo ama meelo kale laga soo sameeyo inay dhaqanka iyo anshaxa aada uga soo horjeedaan. taa laftigeeda anagu guddi u saarnayba oo fiidiyooga ilaa iyo laisla arko oo lasoo saxo oo guddiga farsamada soo saxaan ma ansixino ma sii dayno. kaasi waxa uu ahaa abwaan xasan dhuxul gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska oo u warramayay cabdiraxmaan bidhaan. markana cayaarihii axmed cabdinuur maanta ugu dambeysay horyaalka ingiriiska see loo kala badiyey.